كلا وحليه يقال وحال دها من اتقى الله سبحانه وتعالى قفك إلهي سبحانه وتعالى كعب صدا أحبه الناس تدكو وجعلانا يعني وإن كرهوا هذا نعم بي معناها قفكاس وحلو نعو هل هذا قفكاس وحلو نعو هل هذا هدو إلهي سبحانه وتعالى كعب صدا قفكاس إلهي سبحانه وتعالى قلوبت بالآمك وحدحتك يا إن أي مكاننا ساجعلادان نبي صلى الله عليه وسلم آيات صلاة نبي صلى الله عليه وسلم مركو صباحي oo lagu soo dajiyay waxyiga wax ka cadow badnaa ma jirin ummadda dhan cadow ayay ku ahayd maalintii uu dhimeynayna qof looga jacayl badan yahay ummadda oo ummadu isaga daraadii ay u dhimanayeen oo hadii uu wax amro wuxuu amro la kala boobayay oo xitaa timihiisa iyo weysadiisa la kala boobayay noloshiisa mid ay dadku qaali ku ahayd ayuu ahaa markuu dhintay nabiga sallallahu alayhi wasallam marka qofku haduu ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay ka boqo mar waliba hawshiisu iyo noloshiisu waxay ku dambeynaysaa guulba ku dambeynaysaa oo maaha qofku inuu boqo oo xitaa mustaqbalkiisa u boqo oo xitaa caruurtiisa u boqo oo xitaa ma garanaysaa umurihiisa khaaska u boqo maaha adduunyadu way isbedelaysaa dadka hadeer laga yaabo inay cadow ku yihiin cadow ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsanaya waxa imanaya dad kale oo iyaga ma garanaysaa bedelaya dadka kale ma garanaysaa ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala jacayl iyo xubbi qulubtooda ku beeraya nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ila habba allah ta'ala abdan hadu ilaahay subhanahu wa ta'ala adon u jeclaado nada jibril ana allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu fulan أنا نادى جبريل أن الله سبحانه وتعالى يحب فلانا وحو دواقا جبريل ملك جبريل إلهي سبحانه وتعالى وحو جعله فلان أن نجعله هذا ترى هو جعل هذا جبريل وحو دواقا أهل السماء أهل الملائكة دواقا ملائكة كله وحو لها إلهي سبحانه وتعالى وحو جعل هذا أدون كاس ذكر جعل هذا ترى يوم وجعل هذا ثم يوضع له القبول في الأرض هذا تنقلك وحلودك قبول يقفكاس إن أقبله إن أمة المجتمع بالآلمك جعل كاسنا وحوي بالآلمك جعلانها وحوي لله سبحانه وتعالى ولدينه ولإيمانه وحوي الدين تيسا إلهي سبحانه وتعالى دراتي إن أجعلان جعل كنا وحوي تقفك إن نفتيسا مستقبل كيسا مكرنسا شرفتيسا iyo dadnimadiisa iyo insaaniyadiisa iyo xorriyadiisa ilaalisiid iyo sharaftiisa ilaalisiid laakiin maaha kan maanta dadku badanaaba afka ay ka sheegtaan oo ay dhahan hebel waa jecelnahay hadana waxa laga yaabaa waxyaalo fara badan oo khaldan inay ku sameeyaan markaana waa inaad sidaa u jeclaataa waxa weeye insha Allah ta'ala samarada sideedaad ee laga helayo taqwada إلهي سبحانه وتعالى إن لقبقه وحويه نصرة الله للمتقين وتأييد إن إلهي سبحانه وتعالى أهيليه قادتك متقين إلهي سبحانه وتعالى حقي ساح إلهي سبحانه وتعالى تتك عبسنا يا أهيلنا يا هيلتان وين واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين إلهي سبحانه وتعالى وحليا إلهي سبحانه وتعالى كعبسنا وحنا وقاتان إلهي سبحانه وتعالى إنهم متقين معذيهي oo iyaga uu la jiro oo u helinayo marka maciyatu noocan maciyadu waa laba nooc maciyada koowaad waxa weeye in ilaahay subhanahu wa ta'ala ku arko oo makarasa amalkaaga iyo waxaaga la socdo oo umurahaaga uu la socdo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala si caam ah oo ummadda bilaadanka uu arko si khaas ana maciyada labaad waa takhaaska ee maciyatu mu'miniin وحوي معية المؤمنين وإلهي سبحانه وتعالى إنه معوذ نقضه تذكى مؤمنين إلهي سبحانه وتعالى كعب سنيا ونا أهلنا يا ونا حجنا يا هدي مرجعنا وكسر يا وحيابها أورن معجرة جاكا مع وحيابها أورن أي كتسنسا مكان في ثمرة عائلات هاي وحوي إلهي بمعها نقولها ومكرنا سامرجو يول بهار أورن إنتو كاك حيو أيو إيمان
iyo diin iyo istiqaamo iyo sacaado iyo qalbiga oo ku farxa ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ku gelinaya. Attaqwa sababu libarakati alacmaali, cabsidu waxay sabab u tahay ama thamaro iyo faa'iido u tahay camalkaaga oo barakooba. waa camalkaagu inuu barakoobo magaranaysaa waa waxyaalaha ugu aqbaalisan ama waqtigaa ku barakoobayo dee magaranaysaa waqti fara badan ayuu ilaahay ku siinayaa ama waxaa ku barakoobaya camalkaagu camal yar oo aa samaysay ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ajar fara badan iyo fadli fara badan kugu siinaya. ama waqtigaaga hadduu ilaahay subxaanahu watacaala kuu barakeeyo aad fi kulli awqaatika fi daaca, awqaaddaada ama waqtiyadaada oo dhan aa ilaahay subxaanahu watacaala caabudaysid, hadday aroor tahay, hadday tahay galab, hadday duhur tahay, hadday casar tahay, hadday maqrib tahay, hadday cisho tahay, hadday magaranaysaa xilliyada dambe nuska dambe tahay, xilli kastaba in ilaahay subxaanahu watacaala kaa dhigo mid ilaahay subxaanahu watacaala caabudaya. qaybta tobanaad waxa weeye attaqwa sababu linayli hada alkitaab walqur'aan alkariim. cabsidu waxay u tahay inaad gaadhid fahanka kitaabka qur-aanka ah. kitaabka qur-aanka inaad fahantid oo inaad si wacan u dhuxdid oo tafsiirkiisa baratid oo la timaadid inaad ku dadaashid waxaa ku dhaxalsiinaya cabsida. hadaa ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsatid, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku dhaxalsiinayaa kitaabka qur-aanka ah ina aad fahantid ama inaa hanuunkiisa gaadhid. dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay kaas waa kitaabkii laa rayba fiihi wax shakiya kuma jiro, hudan lilmuttaqiin hanuun ayuu u yahay dadka muttaqiinta ah. qofka ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsanaya wuxuu u yahay hanuun ayuu u yahay. qofka ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa ilaalinaya ee diintiisa jecel wuxuu yahay hanuun oo mar kastoo uu arko waxbuu ku qaadanaya oo aayad kastoo uu maqlo